daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayo qaraxii saaga ka dhacay X Control Afkooye oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 ruux in ka badanna ay ku dhaawacmeen. barnaamijkan waxaa idin soo diyaarshay idinna soo gudbinaya anigoo ah saaxiibkeen wariye Saadam Cabdulle Siyaad. habeen labadiisa gelin digiya qarax baan maqlaayo dhaguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan. ciidanka qaranka iyo shacabka deganaa X Control Afkooye waxay ku waabariisteen jawi macaan oo ay ku dhehneed farxad, balse marqura ayuu isbedelay jawigu waxayna noqotay goob aad u murugo badan oo ay taasay yihiin dhaawacyo iyo meydad tiro badan. aroornimadii hore ee saakay qarax aad u culus oo loo adeegsaday gaari deena ah oo uu saarnaa ruux naftiyoora ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku qarxiyay iskooska X Control Afkooye wuxuuna sababay qaraxaas khasaaro iskugu jiro dhimasho, dhaawac iyo burbur hadiyadeed oo soo gaaray dadkii ku sugnaa goobta qarax ka dhacay. khasaaraha inta la og yahay dhimashadu waxaa lagu sheegay in ka badan 100 ruux, dhaawacuna in ka sii badan, waxaana u badnaa dadka goobta ku geeriyooday arday dhiganaysay jaamacadda Banaadir oo u socday xilligaas jaamacadda iyo dad kale oo rayd ah oo goobta ku lahaa meherado ganacsi iyo dad kale oo u socday deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada Afkooye, balse dhammaantood si silic ah oo arxan darro ah ayaa lagu xasuuqay iskooska X Control Afkooye ee magaalada Muqdisho. qaarkood waxaa la ii sheegay ayagoo gubanaya in ay nafti ka baxday kuna dhawaaqayay dabka naga damiya, balse suurtagal uma aysan noqon dadka goobta ka badbaaday inta badan in ay badbaadiyaan dadka gubanayay. dadka qaarkood waxaa dambas ka dhigay qaraxa halka ka dhacay, qaarkood hilbahooda ayaa la waayay. X Control waa bar kontarool oo muhiim ah oo laga sugo amniga magaalada Muqdisho laguna kontaroolo gaadiidka noocyadiisa kala duwan, waxaana dhammaan lagu jira wadadaas dhagaxyo, mana jirin gaadiid ka soo gudbi kara dhanka Afkooye, sidoo kale ma jirin gaadiidka gudbi kara dhanka Muqdisho, waana mid sababtay gaariga saaga ku qarxay goobta in si arxan darro ah u xasuuqo shacabka ku sugnaa goobta maadaama halkaas uusan ka gudbi karin. qaraxa dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay dhammaantood waxaa la geeyay isbitaalada ugu caansan magaalada Muqdisho sida Isbitaal Madiina, Isbitaal Banaadir, Digfir iyo goobo kale, waxayna goobahaas dhammaantood la ciirciirayaan dadkii ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay qaraxii Al-Shabaab ee ka geysteen X Control Afkooye. habeen labadiisa gelin digiya qarax baan maqlaayo dhaguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan.